Hi guys, good morning. I hope that you mar badan waa maqalnaa bulshadeen dhexdeeda iyo banaanka ahaanba yani hebel ama dadkan ama qofkan views dartiisa ama internet attention dartiisa waxaan u sameeyey shakhsigan kolley shakhsigan kusoo koobaynaaye views dartiisa YouTube views dartiisa ayuu nafsadiisa halistan ugu wadaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحب شرفت بدن سو دواده markale ku soo dhawaada muuqaal kale walaalkii saaxiibkan Cismaan oo sii channelka soo pro markale waxaan idin leeyahay kuma 60 sida mar walba aad la socotaan muuqaalada aan channelka soo dhigno sida oo like gareynaysan oo share gareynaysan aad inoo taageeraysaan inoo dhiirigelinaysaan walibana haddii aad channelka ku cusub tahay oo aad tahay qof hadda subscribe gareeyay aad iyo aad u mahadsan tahay soo dhow. runtii qofkan maanta uu muuqaalkan uu ku saabsan yahay shakhsiyadiisa ahaan marka la yiraahdo aad ugu faraxsani inaan baro qof aanan horay u aqoon balse muhiimadda ka dambayso ayaa markaa iga keentay inaan muuqaalkan aan ka soo sameeyno. qofkani waxa la yiraahdaa magaciisa ama magaca internetka looga yaqaan waxa uu yahay Nikocado Avocado. hadda haddii adiga aad internet ku qorto magaciisa ama YouTube aad ku qorto waxa kuu soo baxay sawiro aad u qaab daran oo maaragtay aadan jeclaysanaynin oo walibana ah dhan marka la yiraahdo adiga waa shakhsi aad u liito maaragtay waa nin adiga nin kala qabo macnaha waa nin kala qabo oo macnaha nin oo isla jinsigiisa oo kala la nool يعني meesha ugu dambeysay ama wax la nici karo anaga ahaan markaas inaga jooga balse taas muhiimadda aan muuqaalka u soo qaadanayo ma aha. qofkani waxa uu ahaa markiisii hore sawirkan haddana waxa uu marayaa sawirkan macnaha waa sanado gudahooda waxa uu ninkan isbedelkan uu ku sameeyay. isbedelkanna marka aad u fiiriso ama taariikhdiisa ama siduu ahaa marka aad dib u raacdo de waxaad arkaysaa waxuu isaga kasbaday oo uu isaga iska dhigay oo farihiisa iyo gacmihiisa iyo de lugihiisa ku doontay inay yihiin aynu ugu wacan tahay markaasi inuu helo attentionka dadka ama waxa loo yaqaan viewska. shakhsigan waa American asal ahaantiisana ka soo jeedo Ukraine. waxa uu ku noolaa Colombia adiga 2014 meelahaas markay ahayd ayuu waxa uu ku soo biiray YouTube. xilligaas waxa uu ahaa vegan ama vegetarian. qofkaan fahansaneen vegetarian waa macnaha dadka oo kaliya aaminsan inay qudaarta wax walba leedahay aanan cunin markaasi wax walba oo xayawaan ka yimaado sida hilibka iyo caanaha iyo subaga iyo waxyaabahaas oo dhan. waxa la dhihi karaa xitaa wuxuu ahaa adiga macallin ama qof oo yani aad dadka ugu soo dhiirgelinayo inay noqdaan vegetarian oo hilibka iyo waxyaabahaas markaasi ka soo go'aan. waxa kalena sidoo kale u raacsaneed oo uu lahaa xirfad kale oo ayadana ah violinka macnaha violin ayuu garaaci jiray oo sidoo kale channelkiisana uu ku soo bandhigi jiray isagoo heesaha qaar macnaha cover u sameeyay. marka 2 sano kadib marka la maray 2016 ayuu ninkani waxa uu soo fariistay YouTube channelkiisa oo wuxuu yiri oo sheegay inuu ka baxay macnaha community ama dadkii oo vegetarianka ahaa oo qudaarta kaliya waxyaabahaasi ku noolaayo cuni jiray. wuxuu yiri dadkaas hadda kadib ka mid maahi macnaha aniga xaalad caafimaad darteeda yani waxyaabaha qaar sida hilibka iyo caanaha laga helo ayaan ka maarmi waayo marka waxa uu yiri marka waan laabtay. adiga dad badan oo channelkiisa ku xirnaa ayaa sidii uga go'ay dadka qaar xitaa oo yani dadkaasi communitygaas vegetarianka ka mid ah ayaa xitaa sida uu sheegay waxa ay ugu soo hanjabeen dil macnaha maadaama uu ahaa qof xubin muhiim ah u ahaa oo kale oo dhanka internetka dadka ku soo baraarujin jiray oo ka baxay. kadib wuxuu arkay marka mowduucyadan oo la yiraahdo mukbang oo ah yani qof intuu cuno soo karsado oo yani cunadii dadka hortooda ku cunaayo inay aad dadka markaasi ay u xiiseynayeen u arkay. marka wuxuu ka faa'iideystay isagoo ka soo baxay maaragtay vegetariannimo oo haddana sidaan soo noqday barnaamijkii ayuu sameeyay marka cuntadii ayuu maaragtay intuu keensaday dadka hortooda ku cunay. marka barnaamijkaas markii uu sameeyay ayaa wuxuu helay xilligaas 2016 viewskiisii ugu badnaa waqtigaasi abid oo ah isbuuci gudahood ayuu wuxuu ku helay marka 50,000 oo views inay muuqaalkiisas daawato. viewskii qaaday wuxuu yiri views intaan la wiliga ma baheline ku socdaashan meeshii markaasi kala bilaabay. channelkiisii oo dhan wuxuu ka dhigay waxyaabaha uu soo gudbiyo yani ma aragtay isagoo cunto cunaayo cunto aad u badan cunaayo. marka 2018 waxa laga casuumay meel oo yani show oo kala ah oo dadka macnaha vegetariannimada ka soo baxo oo haddana groupkan ayagana yani cuntada iyo waxyaabahaasi dadku ku hor cuna adiga barnaamij oo kala lagu casuumay adiga ninkii shacbiyadiisii wixii ku xirnaa kore u sii kicin. qofkani markii hore wuxuu ahaa marka
qof degan oo tartiib u hadla oo yacni dee ma aragtay dee waxa uu isaga rabo markaasi ka hadlo. For the planet, I mean, this is a movement that's spreading very quickly and very fast because of social media. xilligaas markaa views badan ma uusan heli jirin marka xilligan uu bilaabay cuntada iyo waxyaabahan iyo yacni qaabdaradan iyo lalabadan iyo waxaan oo dhan inuu sameeyo haddana wuxuu kusii darsaday markaa energy kale oo waali oo kala Using me for views, acting like they're so concerned, sympathy. Oh, please. يعني wuxuu rabo sameynaya meeshii ku dhex ooynaya cuntadii dusheedu haduu rabo timaan ku xiiranaya cuntadii uu ma aragtay ku dul tufaya adiga waxyaabo aad iyo aad u qaab daran macnaha de waxa uu dareemay dadka waxyaabahaasi waalid ah oo qaab darada ah oo laga wiswisay oo kale markii arkaan kaliya inuu ninkani ama qofkani uu views helayo taas ayaa markaa mar walba ku sii badinaysay ilaa iyo ugu dambeyn sanadkani uu yimaado heer macnaha neefta ay dhibto sababtoo ah dee qofka haddii uu maanta cunayo intii maqaaxidan inta la sameeyo dadka kale laga iibin lahaa keligiis hadduu cunayo yacni caafimaad ma jiraayo meeshaasi marka intaasi oo dhan waxaa ka dhigaya booska soo istaajiyey isaga afkiisa ka sheeganayo wuxuu leeyahay This is how I make my money. This is how I pay our bills. This is how we can afford America. haddii kale macnaha views ma helay aniga haddii kale macnaha waxaan beesho ma helay haddii kale lacagaan meel dhigto oo hadhowdii aan guri ku iibsado ama aan ku gato ma helay marka hadda waa taa keentay ugu dambeyn yacni isagoo oxygen u xiran yahay oo dee neefta dhibayso inuu soo fariisto oo ma aragtay dee yacni qaabkaasi uu gaaro muuqaalo badan laga sameeyay dad badan ayaa dhaliilay ficilkiisa waxa uu sameynayo dad badan ayaa soo xasuusiyay waxa uu yahay balse ma ahan qof is-ilowsan isaga is xusuusto sababtoo ah de aniga qof ku xiran oo channelkiisa daawada ma yihi laakiin muuqaaladiisa marka la soo koobo waxaad ka arkaysaa yacni inay marar badan ay ku jirto ooyin iyo ma aragtay de yacni waxyaabo badan oo calooshiisa ku jiro oo ma aragtay de uu soo xusuusanayo isaga siduu aan jiray siduu yahay iyo waxyaabahani meesha la tagtay inuusan joogsi lahayn hadda la joogo muuqaaladiisa haddii uu waaliday waxyaabaha uu sameynayay qaab darada haddii uusan ma aragtay sidii ku wadin ama wax uu iska dhimo dhanka iyo viewskiisu ka dareemaya dad badan oo soo dhaliileen iyo sidoo kale xitaa dad badan ayaa fariin u diray dadka isaga daawada oo yiri yacni qofkan haddii aydan rabina inuu dhinto ama addishaan viewska ka daayo oo yacni wixiisa dhanba ha daawanin at least si uu soo laaban karo marka ugu dambeyn fariinta muhiimadda leh waxay tahay annaga han dhankeenaba waan aragnaa macnaha dad oo views dartooda u sameynayo waxyaabo oo ma aragtay dee ay adag tahay in la sameeyo haddana waxa waa internetka gudihiisa adigoo internetka ku jiro oo muuqaal sameynayo waxaa laga yaabaa marba sida aad muuqaal u sameynayso maalin oo kale waxyaabo qalad ah oo kale ama adiga sharaftaada ama adiga sida aad tahay waxyaabahaasi kusoo laabana inta aad sameyso inay dadkii ku daawanayaan darteeda intaad aragto wixii aad joojin weyso haddii aad views fiirinayso ama haddii aad fiirinayso kaliya muuqaalka siduu u kacayo viral u noqday oo aadan fiirinin wixii sida ay kugu soo laaban karaan dee marka dambe waxay kula tagaysaa meel aadan ka soo laaban karin oo xitaa meeshaas kaliya aadan joogi karinoo haddii shalay muuqaal waaliya dadka ay kugu soo xoomeen beri isla waalidaas xitaa kugulama joogaan wax ka sii waalanay u baahan yihiin dee haddii kale waxa waa xitaa waalidaada laftirkeedii meesha aad joogtay lagaaga sii tagaaya ujeedada muuqaalkana waxay tahay marka ama ajnabi ama soomaaliba haddii kaliya aad fiiriso wixii adiga views kaa soo gali karo marka dhammaantiin waa maasantiin insha allah inta muuqaalkan aad daawateen inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagaa nabad ahaad